waa habeenka kaliya inaan ilaawi doonin inta aan noolahay. habeenkaas sida caadiga waxaan iska daawanayay TV-ga, waxaana jirtay makhaayad cusub ama restaurant cusub oo agtina laga furay oo lagu gado cuntooyinka fudfudud. waxaan toos soo galay makhaayadii, waxaana dareemay in makhaayadda tahay mid cusub maadaama aysan joogin wax macaamiil ah oo meesha tahay cidlo, xitaa shaqaale ma aysan joogin. waxaana ku arkay hal qof oo keliya oo meesha lacagaha lagu bixiyo joogo, balse waxaas oo dhan waxaa kasii la yaab badneed qofka meesha jooga inuusan ahayn qof caadi ah amaba qof dabiici ah. jirkiisa wuxuu ahaa mid ka duwan jirka bini'aadamka, wuxuuna lahaa indho bannaanka u soo baxsan, taasoo anigii u abuurtay cabsi iyo la yaab. waxaana isweydiiyey su'aalo badan oo ah, qofkan wax ka khaldan yihiin jirkiisana aad moodo cudurka inuu qabo, miyaa hadda cunto ku dooni doono oo aad cunto u tirsan doontaa? meeshii ayaan soo istaagay, waxaana ku dhahay Jangan wax adiga ma heli karaan. Xagaa faltan min ma hadisay. Heegan u baahanyahay. Iyo firam masiis. hal mar ayuu kor u soo qaaday indhihiisii cabsida badnaa oo awal baan ka cabsanayay. bannaanka ayuu noo soo bixiyey, waxaana isdhahay qofkan indhahiisa caadi uguma yaalaan miyaa? wuxuuna igu yidhi, usoo dhawo makhaayadda Naboobais. waxaad u baahan tahay sheeg. wax kastood u baahan tahay waan kaa caawin doonaa, waana ku siin doonaa weliba sida ugu fudud oo ugu dhaqsiyaa badan. waxaan u sheegay dalabkayga oo dhan si uu dhaqsi ugu fuliyo, waxaana u dhammaystiray dhammaan dalabkayga. wuxuuna i weydiiyey magacayga, maan rabin inaan u sheego balse waan ku qasbanaa. waxaana ku dhahay Jennifer ayaa la dhahaa. okay Jennifer, soo dhawow, dalabkaagana hadda ayaa lagu adeegi doonaa, dhaqso ayaadna ku qaadan doontaa. waa uu baxay, wuxuuna aaday dhankii iyo jikada si uu cuntadii igu soo qaado. wax yar markii aan joogo waxaan dareemay ur aad u uraayo oo dhanka jikada ka soo baxaayo. waan sikiyey, waana yaabo maxaa khaldan baan isdhahay. waan sugi waayo oo waan soo baxay jikadii ayaana soo aaday. waxaana fiiriyey ninka waxa uu samaynayo. ninka waxa uu ahaa mid aniga cuntadeeda diyaarinayo, balse waxaas dhan waxaa ka daran wuxuu samaynayay waxyaaba aad looga labalaboodo oo wuxuu cuntada iigu darayayba mantagiisa. waxaa soo warayan wuxuu waa mantagiisa. qofkuna ma ahan qof caadi oo fiyow, waa qof wax ka khaldan yihiin. wauna arkay, wuxuuna igu yidhi, waxay ahayd inaad banaankii ku sabto, ma aysan ahayn inaad soo xararto. aniga aaday hundhadiisa waan nahay. waxaana ku dhahay, ka raali noqo, ma u baahni wax kaste oo aad adiga samaysay, bas ayaan iga tahay. maya ma baxaysan baasid. wax kasta oo kuu diyaariyey, wax kastana way hagaagsan yihiin. hadda ayaad qaadanaysaa, waxna ha ka walwalin. ciidii ayuu soo qabsaday. aniga markiiba waan sii cararay oo waan fakaday. wuu iga soo daba cararay isagoo wada dalabkii oo gacantiisana ku wada. wuxuuna ku hayay, isug ha cararin, dalabkaaga ayaan ku wadaa. anigii warkiisa maana maqlina waan fakaday, waxaana ka baxay albaabkii, isagana wuu iga soo daba baxay. wuxuu ahaa mid aad u orod badan, waxaadna moodaa inuu wax yariis uun ii jiray, balse nasiibkayga markii aan saas u soo dhaafay ninkii gaari ayaaba jiray, balse aniga maanan istaagin oo waan sii ordaayey. xitaa maanan isdhihin qofkii ma nool yahay mise waa dhinta feeri. waxaana toos u soo aaday gurigayga, qolkayga ayaana soo galay. hooyaday ayaan wacay, balse hooyadii maysan iga qaban habeenkaas. waan murgi, waxaan dhahay, allah caawa maxaad samaysaa? ka hore ninkii hadduusan dhiman oo uu soo raaco uu guriga ku imaado. albaabadii ayaan wada xirtay, dhan kasta oo labiga soo galayna waa xirtay. bud ayaana gacanta ku qabsaday, waana iska seexday. xilligaas waxayna ahayd xilli iska fiidnimo ah oo 8 fiidnimo camal ah, balse waxaas dhan waxaa ka daran xilli ay ku beegan tahay 2 habeennimo ayaa waxaan dareemay albaabka in la gargaraacayo oo la rabana in la soo furo. eeyaashana waxay bilaabeen inay qayliyaan. qofkaas wuxuu rabay inuu albaabka soo jebiyo, aniga naxdin iyo yaab. haye Jennifer, waa ku wadaa adeegayga iyo alaabtaada. albaabkayga fur. wax kasta waa diyaar, dalabkaaga ayaan ku wadaa. albaabka bas iga fur. aniga markiiba intaan naxay ayaa booliiska wacay. waxaana ku dhahay, qof waalin ayaa bannaanka taagan, mindi ayuuna haystaa, waxauna u baahan yahay inuu aniga i dilo. dhaqsada. aniga naxdin oohin ayaan bilaabay,
balse oohinta waxba igamaysan celinin. waxuuna bilaabay ninkii inuu mindidiisa u gelgeliyo albaabkii si uu u soo furo. maxaa kaa khaldan, faraha iga qaad ayaanu ku dhahay. aniga waan isku ooyaa, balse oohin maxay ii taraysaa? wax yar kadib waxaan maqlay dhawaaqii booliiska, waana yara nafisay. albaabkii ayaan furay, misena qofna ma joogto. waxaana yaala dalabkayga oo keliya oo magacayga ku qoran yahay. booliiska waxay aadeen restaurantigii. markii ay galeenna qofna kumaysan arkin. waxaasna waxaa kasi daran waxay meesha ku arkeen qof meyd ah oo dhintay. ninkii meesha mas-uulka ka ah ama madaxda ka ah ayaa loo wacay, waxaana la weydiiyey wax walba sida ay u jiraan iyo waxa ay yihiin dadkan. wuxuuna noo sheegay in qofkaas ay gabadha sheegayso laga buriyey shaqada maalmo ka hor, maadaama ay dadka kusoo sheegeen waxyaabo dhaqan xumo ah iyo qaabdaro ah, sidii ay gabadha ku aragtay oo kaleeto. sidaas darteedna shaqada looga buriyey. waxa uu maanta ku yimidna ay ahayd wiilka meesha ku jiray oo isagu dilay.